Badhsaabka Sanaag Maxamed Axmed Caalin Timbro galabta qaybo kamid ah warbaahinta kula hadlay gudaha magaalada Caarre ayaa ka warbixiyay dagaal maanta ciidamada qaranka Saomaliland iyo jabhadda kornayl Caarre ku dhaxmaray dawga tabca oo xiriiriya magaalooyinka Caarre iyo magaalo xeebeed qadiimiga ah ee Maydh waxaana badhsaabku isagoo arrimaha dagaalkaasi iyo wixii khasaare ka dhashay ka hadlaya waxa uu yiri saaka waxa dhacay ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Saomaliland ayaa gaaray ciidan uu watay ninkii loo oran jiray Caarre oo halka ku soo dhawaaday goob leedahay wadada laga galo karinka ciidanku nasiib wanaag iyadoo aan waxba ku dhiman laba gaaraan ninkii laga soo qabtay isaga iyo saddex gaarina waxay u yaaceen buurta gudaheeda si nabadgelyo odayaashii looga daba diray mar walba xagga nabadgelyada ka maraynaa qofna inaga ma go'o hawshaas si wanaagsan u socotaa waana soo gabagabeysaa insha Allah wax khasaara labada gaareen ninka laga soo qabto faa'iido mooyaane wax khasaaro dhacay in dhaawac jiro finiin xabado ku dhacay dhagax ay galgaleen wax dhibaato kale kama dhicin meesha Badhsaabka Sanaag ayaa sheegay in wax dhaawac iyo dhimasho ah aanay soo gaadhin dhinaca jabhadda kornayl Caarre balse ay ka qabsadeen laba gaari halka ciidamada Somaliland uu soo gaadhay khasaare hal askari oo dhaawaca waxba kama jiraan alla wax ka dhintay wax ka dhacay midna ma ogin ciidanka kaasa ka dhacmaan ku okay ويونس شيخ أحمد Universal TV Caarre.